السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإسلام دمان أصحابتي قالقة أصحابتي قالقة سيتين في عنتهين من نبات قبتين إلهي إذن كيسو وإذي رجينا أمال كستو أدونك كجوكتان إيسو دواذا نوسو دواذا خير إيا فرحة سو دواذا وماموانا إيا مركلة إيا شانل كيني ماموانو إيا ساحيب هذا قالقة أغيارت شرفت لإسكسو نقط كلو وناكسن قلب وناكسن حقيقة واكا قلب هيا دمانتين سلام هود إذي سو مرينايا welcome إذي leeyahay khayri farxad soo dhawaada ka raali ahaada dadka oo dhan si toos uguma wada jawaabi kari marka I hope inaad sii daa su'aalaha iyo dhiirigelinta guud aad ka faa'iidaysataan wixii idinka anfaco haye intiina aan u soo jawaabay insha Allah when you're ready adiguna haddii wax kaloo hadal ku dhiman yihiin soo dir haddii kalena saa ku raali noqo insha Allah dadaal dulqaad ilaahay bari haye qof walba wuxuu i weydiiyay asaa oge dantaadaas insha Allah Allah fududeeyo duceyso dadaal dulqaado garabkaaga Allah galo soo dhawaada walaalaha sida guud iigu xiran walaalaha komanka fadhiya raali ahaada mar walba Allah galoofka bixina jazaakallahu wa maasantina daa idin iloobo raali ahaada markay ishayda idin qabato tahniyada iyo dhiirigelinta iyo loofka ilaaga intaan uga jeedaa jazaakallahu khayr Allah idin siiyo markaas am sure ina idin leeyahay thank you waa aniga loofka ilaaga idin saaro badidiina khayr Allah idin hadaan isgafnana sorry haye khayr Allah idin soo dhawaada welcome idin leeyahay dhiirigelin wanaagsan haye saaxiibada qaaligayo haddaan ku horumaray jadwalka maanta reer dadaal reer dhuujis caawa eedan shaqadiina soo galayaa ka hor insha Allah shaqadaana inoo wadaa iyo adeeg aan idiin wada maanta isniin waaye isniin talaada arbaco khamiis aad aan iskugu agdhownahay marka caawa 8 ilaa iyo aan isla joognaya ila garo intuu ilaahay ka raali noqdo isla fiidsan doonaa welcome adile inta ka horeysa halay sugo khayr Allah idin soo dhawaada welcome haye inta iyo dhiirigelinteeda waxyaabo waxa iska jirjira marmar maaragtay aan dhiirigelin ka dhiibo sida dadaalka guud oo kale marka taasaan maanta xoogaa dhiirigelin ka dhiibi doonaa hadduu ilaahay idmo soo dhawaada welcome khayr iyo farxad soo dhawaada adduunka xoogaa iska yara kulkululaaday marka foljignaanta waa fiican tahay allah naga qabto wixii shara waa ujeediin aan u malaynayaa qolooyin aan isgaari jirin isgaaray ila garo marka waxa waaye waa isku buntuq sifaysanayaan maaldhaams isku soo faysanayaan marka dhexdooda ilaahay naguma fidneeyo ilaahay naguma maaragtay dhibaato yeelo allah nagu ammaansado intii wax ku noqotayna allah sabar iimaanka sii allah u boogadhayo dabcan qayladii yeertaa qofun bay khasaare ka gaartaa marka dadkuna saas iskugu dhex jiraan arliga ilaahayna waa la wada joogaa marka meel kastaad laga joogaa he allah nagu nabad yeelo soo dhawaada khayr iyo farxad soo dhawaada haye reer dabiiba ogsoonaada caawa 8 oo kaarkiina koobaad soo dhici doona ee qaybta qaaska ah ka hor casharadiina bixi doono masajada intii aan ka gaara idinkaga jawaaba insha Allah qofkii masaj reebtay cod salaanka bacdi danteeda gabadhii ka hadashay intaa u jawaabana dawaaba u jawaabay soo dhawaada welcome clipkan wuxuu wataa adeega idin soo raacinaya reer dabiibo adikan waa idin soo raacinaa inboxka oo qolka xaji maciyo ku soo dhici doona haduu ilaahay yiraahdo ciiltire inaan ku diraan rabaa ila sheer garay dabiibka iyo saboodka dabiibka inaan geeyo intaan ka gaaraba inaan u diro saddexdan shay marka muhiim waa haddii aad joogto wadamada wadan kamida oo u dhaartay ninka la yiraahdo ruushka dagaalkii waa qaraaraada waana fool xumaada wuxuuna isku bedeli doonaa sida hadda qiyaasta lagu saadaalina Allah naga qabto wixii share qaybta loo yaqaano cyber fight u bedelmay marka cyber waxa laga wadaa internet ahaan ayaa leesdaminaya shutdown leeska dhigaya ayagii waa lagula kacay laba bari ka hor lagula kacay annagaa sameeyna ma dhahayaan dadkan yaa ila garo laakiin waxa jira qolo iska wax u qabso dadka wajiga wax gashto marka qoladaas waxa la yiraahdaa anonymous qofkii yaqaano marka meelo qaarkood hadduu dagaal ka dhaco ama wax khasaare ay wax dhacaan ayaga isxilqaama waa group iska wax u qabsa internetka marka waxay u leeyihiin xirfad waa dhalinyaro rag iyo dumar faraha ka falano internetka si fiican maaragtay waa dhunxiyeen marka hadda waxay ataageen qoladii ruushka la dhahay awal ruushka oo dhibaato loo geystay ayaguna oo calaaqaadka adduunka dhan lagala noqdo la fadeexeeyay oo la ceebeeyay oo la yiri ma aragtay si xun aad u gasheen because wadanka Ukraine wadan iska sii dhaqaale roona ma aha waad aragteen dadkiisa si sabool qaar ugu egyihiin dad dhifa maahan inta badan waa iska
yaa dadkii hore camal waayo ma fahanteen marka dad saas iskaga yara dhidhiban oo ayaga dhanba danyar u wada eg ayaa inta la qabsadaa dhulka lala dhigay marka adduunkii dhan aa fadeexeeyey marka isfahan iyo wada hadal iyo maaragtay si dimuqraatig ha laysku maqla iyo waxaa ma qoran ruushka waa nin iska gumaada ah marka maadaama uu gumaad sameeyey asigana waa duka cambaaro lahaa laga dhigay qoladan iskaa wuxuu qabsaa intay factory ayay kasii xirxireen intii harte marka safaaradahana waa laga kala qaatay waad ogtihiin dadweynihii maaragtay jooga xataa waa laga wada baxay waa laga wada baxsaday marka hadda wuxuu taagan yahay geedkeen haabtaa ruushkii marka qof walba siduu kolley maaragtay arrimaha politicalka u fahansan yahay hadda iyo dan waxaa la yiri ruushkii waxaa dhacday meelo badanaa laga xiray waxaa kamid a bangiyadii waxaa kamid a waxyaabaha ay maaragtay cirka u diraan satellaydyada badroolka qaybo kamid a maaragtay iskuulaadka waxbarashadoo kale adu meelo muhiima ayaa laga wada xiray internetka caadiga hoon haddaba isticmaalayna ani adiga xataa waa ka xiran yahay facebook waa laga soo kala cararay BBC iyo kulli waa laga kala cararay marka hadda xaraaradda caadiga ee adduunka ogaan karayaan idaacadaha adduunka xataa qolada anonymouska la yiraahdo afka u duuban yahay ee burcadka internetka ka xiratay marka way dhaarteen waxay dhaheen kolley ingiriiska waa ku jiraa safka maraykanka dadyoogeennaan haddii iskaga tashta nalka iyo biyaha iyo alaabtan iskaga dhex jirto waa naloo hanjabay waxaa la yidhi adinkana korontada minida idinka tegaysaa ogaada marka maxaa la yeeli wadamada u dhaartay haddaa joogtid kolley wadamada yurubiyaanka oo dhan waa u dhaarayay wuxuu kaloo u dhaartay maraykanka annaga waa ku jirnaa marka bal maxaa tala ah tala waa tii ilaahay dadku horta haddadaanaan klibka duubayo waxaa socda wada hadal aad u fara badanaa adduunka socda maalin walbana way socotaa intaas waxaa la raadinaa xal madax badanaa xataa carartay oo u tagtay turkiga kamide wadamo badanaa kamide oo u tegay caadi faransiiska waa u tageen adigu wax xala maleh hortaada aan ukraine ku gumaado iska lahaado iska xukumo dowlad dhanoo meel fadhido raba inuu xukumo marka arrimaha politicalka waa madax dawaq afaaraasna afaareena maaha laakiin maxaa talaa see xeere lagu xagtaa ilka ku nabadgalaan seen dadkan ula joognaa hadda meel laga baxaay waxbana maba jiraan meel kastoo isu soo xirxirtee qofkii baxsanaya laakiin waa u malaynaa inay weli diyaaradaha shaqeynayaan qaarkood wadamadanaan joogno marka waa kaasa intii xaniban laakiin allaha idiin fududee allah noo fududee dhammaan marka maxaa talaa dad badanaa diyaar garoobay haddaan runta idiin sheego ajnabiga waa ogtahay ilka abeesa hoosay ka xiriiraan waa diyaar garoobaan marka sideedaba anagu diyaar manihin haddaan runta idiin sheego aniga hadda maanta hal karbuuno ama tooj shaqeynayo gurigeyga ma yaalo wuu ooli jiray meelay ka baxeen ma aqaano ciyaalka ku falaadeen waa la tuuray marka way iska fiican tahay inaad tooj haysatid qaas ahaan midka ah soola tooj oo cadceedda ka qaato gurigana aa ku jaarjigaraysan kartid laakiin haddii korontada xaafadda isdardarto midka soolarka ah way iska fiican tahay inaad haysatid ama aan haysano wax burjiko camale ama barbecuega ka lagu samaysto oo hilibka lagu dubto anu kaas waaba ku fikiraysa marka inaan soo qaato mida ii ooli jiray laakiin wuxuu ahaa big and bulky aad u weynaa marka waa isdhaafay marka mid yar oo maaragta kooban oo hilibka lagu dubto aad ayay niyadda iiga haysay marka waa kaasa insha allah rabadaankana kolley hilib lama dhaafaye in layska sii dubaa way fiicanta afcourse ofanka waa ku samaysan kartaa laakiin haddii korontada dhan tagta xageed wax ugu karsanaysaa ilmaha qaasahan haddaad waayeel haysatid waa iska ogtiin kaas waa iska muhiim in la haysto marka 3 shay aan hadda idiin gelin doonaa videoga daraftiisa insha allah qolalka hoose isla joognana waa idinkugu soo diraa hadduu ilaa yaraad videogana waa soo raacina haddii aad joogtid wadamada oo ruushka u dhaartay 3daas shay waa muhiim ogaada telefoonka oo xaraaradda guriga caadi toos loo gelinayo asi internet muu baahno waa iska soo qaada kartaa insha allah asigana soo qaado haddii kalena link waa raadina waa idinkugu soo diraa marka 4 shay oo kuu noqona amazonka u raac videogan kuugu dhex kaydinaya reer UK iyo amazon.com wadamada loo dhaartay haddaa joogtid waaye haddii wadamada cimiladooda kulushahay cimiladooda xun tahay sida duufaanta barafka wax noocaasana haddaa joogtid way iska fiican tahay in layska haysto
maadaama dad badan aan la shaqeeya qaarkood Soomaali ahayn qof walba wuu iska haystaa marka waa emergency prep baa la dhahaa waxyaabaha emergencyga loo diyaarsado waxaa kamid ah dawooyinka qaar ama ma aragtay medicine boxka oo waxyaabaha emergencyga ku jiro kaash haddaa guriga dhiga kartid oo kala dhigo hadda bangiyada lacagi waa lagala baxooyaa kuma lihi wax walba kasoo saar laakiin just in case xoogaa yar guriga iska dhigo qofkii wax haysto ka foljigno idaacadaha ayaantaan aad u dhageyso idaacad ma jeclin waa ogteen sidoo coronavirus u dilaacay idaacadaha waxaa lagu qaaday stress anaaba kamid ah dadka idii sheega idin dhahay anxiety iyo problem kugu kicina idaacadda ka leexda marka hadda idaacadda inaad dhageysano waa fiican tahay marka waxa waaye cadowga meeluu soo maraa ilaahay baa garanayo kulley ayagaa kaa naf jecel u maleyma inay cilad adag iskula dhaqaaqayaan hadday cidu halaagantay ama hoogtay ama khasaare ku dhacay Ukraine leh hanaga noqoto waay dadkan afcad ay ku dhaheen dagaal ma galayno because ninka lala dagaalamaa la ogyahay dhurwaay nin yeelaa waayahay dheen Soomaalida qofkii xun xumaan ka filo marka ruushka nin macmaaha waana nin diyaar u ah dagaal kasta oo ma aragtay saqajaanimo ah marka hubkiyo meeluu kala geeyo waaye marka wixii halaagmaan waaye dhoola tusoo sameynaya marka ilaahay oo naxariista intii ku dhex dhimatay iyo intii ku dhimatayba dagaalkan allahana ka dul qabto xaqdarrada uu ku sameynayo wadanka kale uu maagayo marka hadda iyo dan halees diyaariyo kule wadamo oo iska safe oo ruushka shuqul ku lahayn oo u soo socon hadaa joogtid you are safe dhib kuma haysto ilaahay ku amaansado laakiin dadkan maaragtay idaacadaha taagan afkaasaas loo wada ilaalina hal kalmad hadday kasoo fakata madaxda meeshan joogto oo kaa odaga yaroo cawaandiga qalbigiisa xoogaa taabto waa dhaara loo hadda wada ayaantan marka waxaa dhacday xataa idaacadihii badnaa iyo baqbaqdii badneed in la yareeyey waayo waa iska oday qaraarayo waa qof laga kala tegay waa qof aan cidu rabin duka cambaar lahaa laga dhigay marka hadda cyberkana nimankan afduubka ah meel kasta afduubka waa jooga nimankan iskaa wax u qabsaaho oo la yiraahdo anonymous ayagaa isxil saareen ayagaana maaragtay dhibaato ku fureen siday sheegteen marka waana sheegaan dhibaatada saas anagaa ka dambeynay dhahan dadka maago oo dhan oo burcada oo dhanba waa iska sheegtaan qaladkooda ayagoo og waxay sameeyeen inuun adduunka raalli ka ahayn marka hadda cidna uma dirsanin laakiin ayaga intay isxilqaameenay waxay tusayaan asna inuun awood lahayn marka wixii dhanba way ka xirxireen marka asna waa soo diyaar garooba way halyiri anytime oo wax qam naga sii karaa marka haddaad aalada weydo oo kale iyo waxaasay dhacaan ilaahay naguma keeno laakiin ogsoonow yaa waana loo digay anyway digniintiaan ku jirnaa waa habeenkii saddexaad oo digniinta lagu jiro marka haddii aad horey ka dalbo karto alaabahan dalbo just in case maaragtay ciladu ay dhacdo kabacdina meel loo baxaaba ayna jirin wax walba qam laga siistay marka tooshkani cadceeda ku kululeysan kartaa ama aad ku diirsan kartaa ama aad ku jaarjigaraysan kartaa dhuxushana waaba dhuxul waa back to future waaye burjuka loo noqonaya hob inay baaka adag ku taala guriga ku babisatid cuntadaadana halkaas ku karsatid biyaha cadna waa la soo wada dhigtaa dad badan aa soo dhigan oo biyo cad xoogaa enough kugu filan marka waa kaasa waxaan oo dhan waa wada koronto waa wada computer biyaha computer sii deynaa korontada computer sii deynaa gaaska computer sii deynaa dukaanka aragto ka adeegato waa computer marka lacagtii maqalka caadiga inta la furo lagu ridanayo ma jirto wax walba computer qabanaa marka haddii khasaaro dhacdo wixii dhan way xirmaan qam hadhowna meel loo baxaa iyo cunto la gadanaa iyo bangi shaqeynaa ma jirto marka dhaqaatiirta laga yaabaa inay haystaan generator oo backup ah in case weatherku intuu xumaado korontada ay halowdo kale iyo maaragtay saas ay dhaqaatiirta ay ku shitaan generatorkooda isbeerka ah laakiin dadweynahan kale waxaan haysana male haddaadan toosh haysanin korontadan hadday dinto isha farta ha iga gelinin waa haddaad shumac haysatid ma ogi oo shumacaagaas iska shidanaysid oo xoogaa aa nalka dhiganaysa laakiin inteena badan waxaan ku tashanaa ilaahay ka sakow nalka noo baxaayo biyaha noo socdo waa ogsoontihiin sax lacaga hadday jiraan wixii biilbiila bangiga iskaga jiraan halkaasaan wax ka maamulnaa sax marka dadkii casriga iska dhigayay ee gacanta gashanayay jibka lagu adeegto iyo maaragtay wax walba kaar la-aanta soconayay kaash aa u baahan tahay dadaaba hadda kaashkaba si loo maamulo malaha garanayno muddo dheer kaash taabanin marka casrigii la gaaro dib looga noqonayaa ceeb maaha afkoos meeshaan ka imaanay ahayd 3 dhagax korkood digsi saare ee bariiska ku badbadso ama burjuka saaro ama dhuxul shido marka hadda anagoo Yurub joognaa dhuxushii aan maaragtay dadalbanaynaa
marka waa kaasa saaxiibadeeda qaaliga ani kolley farsama dhuxul dalbado waaye dhuxushan yar ee uunsiga lagu samaysana isfaantaas iska macruuf waa meel kastee taalaa waa iska isticmaalnaa markaste laakiin dhuxusha hilibka lagu kariyo haddee qofkii ma aqaano fariid ee barbecue-giisa samaysanayay grillkiisa banaanku samaysana qofkaas ma aqaano gurigiisa dhuxul waa taala laakiin dadkeena kale iska masaakiinta ee mashiinka le wax ku wada karkarino waxa waaye the first time waa dhuxul dalbano waaye waa idinla sheergarey doonaa insha allah markii laga keena alaabta laakiin hadda iyo dan haddaa u baahantihiin fideogan ka raaca haddaa ku jirtid qaybaha hoose wuu kuu soo geli doonaa fideogan waa kuu soo raaci doonaa biidnillaah youtube-ka haddaa fadhisid oo wadamada loo dhaartay aa ku jirtid waa soo fiiri kartaa idaacadahaaga ama Wikipedia ama meelaha kale website-yada aad ka akhrisato wax waa soo fiiri kartaa wadamo badanaa loo dhaartay oo Mareykanka iyo Ingiriiska kulli ay koow ka yihiin marka hadda waxa la isku adeegsanayo maaha nuclear ku soo tuuro ku qaribayo ka alla magan ilaahay naguma sababo inuu maarto nagu soo tuuro odaga yaro iska maartay ila garada dabeecadihiisa qaar xataa hadda banaanka u soo bixino mustaqbalka laga fool jignaada la leeyahay marka hadda waa cyber waa internet ahaan xaraaradaha dhan uu daminaa zam sida asigaba hadda loo galay marka xanuunkii wuu dareemay wuxuu dareemo rubaacsan inuu ku dareensiiyo iyo ka badanba marka ilaa 15 website oo caalami oo howlo badan wadanka ruushka u kala waday ayay nimanka afduubka ah burcadda internetka ay ka damiyeen cid u dirsatayna malaha waa isku sii diraan dadka isku sii dirayaan hadda already maarat qaatil bilaa la kala taagan yahay maxay noogu sii dirayaan marka waa kaasa asigana wuxuu soo wadaa weerar ka fool jignaada ilaahay habeeneeyo weerarkuu sheegtay inuu soo wado marka waa kaasa kule waan faro badan oo inaba caadi ahayn way socotaa ayaga oo leeyihiin waliba dadkeena maaha annaga dadkooda waxay ku xisaabinayaan inaynan ahayn dad adag marka dad waxa waa rooti bisil ku tashanayaan nahay cunto bisil ku tashanayo dad badan oo waxaa jira xataa aan cuntaba karinin oo meelaha ka qabsado markay baahdaanba cunno marka dadka masaakiinta gacan ku haynta ah haddii la yiraahdo ka waran dhulka wax kala soo bax oo cuntadaada beero haddaad iskululeynaysa aday ku jirtaa qaabka isku kululeynaysa marka burjukiyo dhuxul lagama maarmo haddii markaas arrinka laga dayrina ayna noqoninne kolley hilibka duban aad ay caafimaadka loogu ammaanay ee maaragtay grillka ah marka yes reer dabiiba iska nahay iska soo dhaweysta anyway mashiinada grillka inta badan isticmaalna hilibka lagu dubto laakiin korontada hadday tagto mashiinka ma shaqeynaa waa may marka waa back to the future waaye dhuxushaadii wax ku karso marka waa kaasa I love you so much warning kaasa jiro wadamada loo dhaartay hadda ka mid tahay fadlan xoogaa yaro maarat qarashood wax ku maarayso gurigaaga soo dhigo haddii aad haysatid allaha kuu sahlo sidoo kalena dhuxusha biyaha cadoo kale soo jamlayso wixii badar aad soo dhiga kartid guriga soo dhigo ilmo yaryar hadday kuu joogaan oo kale wixii dawo ah adigoo iska tabaabushayso laakiin adoo iska moogo iskaga tashanayo everything will be okay qam hadday dhacdo hadda dagaalkan kale oo nuclearka dabada la isku gelinaa uun dhaartiisa may dhicin laakiin waxa waa korontadan kaa daminaa waa sidii layga damiyey marka korontada haddii la iska damiyo haddii qof walba meeshii ku nool waa ku dhib qabaa soo ma marka waa kaasaa insha allah ogsoonaada wadamada loo dhaartay haddii aad joogto haddaadan joogin waxba ha ka welwelisaa noloshaada ku maareynaysa si kheyr la allah kaaga dhigo dhaartaasna hadday jirto oo safka aad ku jirto ama yurub ama aad joogto Mareykanka wadamada badan oo u dhaartay intii caawisay oo dhan ayuu u dhaartay oo garab siisay soo wadankaaga hadduu garab siiyey Ukraine adigana waa ku jirtaa safka marka cyberkaasna waa hal maray rabaan inay ummadda ka wada oohiyaan sida ayagaba loo maagay oo korontada looga dansaday marka kheyr badan iyo farxadan ilaahay inoo wada weydiiyay dhammaan waa idinkaasa adeegan hadda idiin soo gelin doonaa insha allah programka ama waxaa idiin soo geli doonaa videoga daraftiisa hayehe waa idin salaamay dhammaantiin reer dabiiba ogaada caawa 8 waa isla joognaa kaarka koowaad wuxuu soo dhaca 8 waa ku kaasaa online haddaad tahay waa kusoo qabanaa caawa insha allah sidii xalay oo kale kheyr badan iyo farxada ilaahay inoo wada weydiiyay dhammaan soo dhawaadahee insha allah oo kheyr hala soo duceeyo ilaahay inuu maaragta naga qabto dadkan meelay geeyaan hub iyo dhiigay daadiyaan waayey marka dagaal lagu ceeboobay waa dagaalkan dagaal laga fiirsanin waayo of course dagaalo badanaa jira oo xaqdarro ah adduunka marka kana waaba mid ugu sii daranba ilaahay naguma dhex dhibaateeyo soo dhawaada kheyr farxad soo dhawaada waa inoo dhiirigelinta kale hadduu ilaahay yiraahdo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh